qaar ka mid ah shacabka magaalada Gaalkacyo ee ku nool xarunta gobolka Mudug oo aan maanta la dhaqaaday makrofanka warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa si weyn u taageeray helitaanka xogta dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka Eritrea iyo booqashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Gaalkacyo oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan in la helo xogta dhalinyaro muddo la weysanaa. magacaygu waa Cabdi Cali Xuseen mudane ka tirsan golaha deegaanka degmada Gaalkacyo. runtii arintaas madaxweynuhu inuu booqdo Eritrea oo uu tago dhalinyaradii muddada laga dhursugayay waa arin aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed ugu farxaday waana soo dhaweynaynaa. runtii madaxweynuhu tallaabo wuxuu qaaday aad iyo aad u muhiim ah wuxuuna ka farxiyay waalidiin badan oo arintaas u dhibaataysnaa. bismillaahi raxmaani raxiim telefishinka qaranka waa u mahad celinaynaa. arinta iyada bulshada reer Gaalkacyo aad bay ugu faraxsan yihiin. waa guul u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed oo 3 sano baroorta inta ku jiray. marka waxaan leenahay dawladda Soomaaliya jir oo joog waana ku faraxsanahay. hadda Xasan Sheekh haduu tagay marka labaad waa waxaan balyeynay Xasan Sheekh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaam bacdigeedna waxaan leeyahay ilaahay madaxaaga ha raajiyo xukunka adeysana ilaahay ha kugu cadaalad mahay asturo ilaahay marka saddexaad xataa inaad soo gasho cadaaladna waa kugu ducaynaynaa. dhalinyarada ciidanka muddo dhowrka sana Eritrea ku maqnayd oo xogtooda la weysana in xogtooda la helo oo hooyooyinkii had iyo jeer murugeysna oo ilmeynayay ay farxaan oo hooyo cunugeeda uu ka maqan yahay waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay. shalay u ahayd maalin ciid oo kale maalin ilmahoodii ay noloshoodii inay nool yihiin ay ogaadeen. aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waa ku mahadsan yahay. sidoo kale in dalka dib loogu soo celiyo oo la soo qaado oo ciidankaas ay noqdaan kuwii dalka xoreeya oo dhibaatooyinka amni darro ee dalka ka jira ka saari lahaa inay noqdaanna waa u rajeynayaa insha Allah ta'ala. bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa TV qaranka oo saakan ugu soo booqday hotelka weyn 5 star ee magaalada Gaalkacyo. ujeedada maanta aan ka hadlaynaa waxay tahay in madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ka soo jawaabay ballanqaadkiisii ahaa inuu 100 maalmood ugu horeysa wax qabadkiisa ay ka mid noqon doonto inuu ka qanciyo bulshada Soomaaliyeed iyo hooyooyinka muddada dheer waalidiintooda la'aa waalidiinta ilmahooda ka warsugayay ciidamadii loo qaaday Eritrea inay hadda waalidiintii ay xalay si fiican u seexdeen markay ogaadeen in ilmahoodii nool yihiin tababarteen. aad iyo aad baa madaxweynaha uga mahad celinaynaa waqtigii uu qabtay iyo inuu ka soo jawaabo 100 maalmood ugu horeysa wax qabadkiisa. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Maxamed Daahir oo jooga magaalada Gaalkacyo ee dowladda gobolka Galmudug. runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta in la helo dhalinyaradii muddada la laasanaa hooyooyinka baroonahayay oo meel u raadiyaan waayay in dhalinyaradaas maanta xogta la helo oo runtii dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh hogaaminayo oo madaxweynihii ugu sarreeyay intuu tago oo la soo hadlo oo dadkii arkaan oo hurdo ka soo dhacday waa dareemi kartaa hooyo cunugeedu ka maqan yahay oo masana warar kala duwan loo marsiiyo baraha bulshada. marka arintaas aad baan ugu faraxsanay runtii anagoo dhan bana taabatay ani shakhsiyan ilmo ma iga maqnaa laakiin hooyo ka soo ilmo ka maqan yihiin waa cunug ani iga maqan. insha Allah ilaahay waa mahadle aad baan ugu faraxsanaa aragtida la soo arkayna waxaan leeyahay waa guul. madaxweynaha Soomaaliya marka maxaad ugu baaqay maadaama meesha ugu tagay dhalinyaradii waxaan ugu baaqayaa si degdeg ah inuu dalka ugu soo celiyo. waxaan u arkaa guul. waalidiinta waxay u soo kordhin kartaa 3 sano waalidiintii lahaa ilmahaygaana laga qancaya halka ay jiraan. horta waxaan leeyahay madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.